waxaa dhawaan la magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdulaahi Xasan. Magacaabista gudoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismarweysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir kuwaasoo isku haystay cidda qabanaysa xilkaasi. Mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dawladda federaalka ayaa isku dayay in ay khilaafkan xaliyaan waxaana ganacsatada ay ka codsadeen inay xal la yimaadaan booskan banaanna ay ku buuxiyaan hanaan ay heshiis ku yihiin. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo la hadlay VOA-da ayaa noo xaqiijiyay in wax yar uun kadib markii dawladdu ka codsatay ganacsatada inay booskan ku soo heshiiyaan in ay al-shabaab u yeereen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa. inkastoo ay qaar ka mid ah ganacsatadu ka cudur daarteen qaar kalena ay wakiilo dirsadeen waxaa la isugu tegay meel ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ay joogeen muddo 2 cisho ah iyagoo dood iyo wada hadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyay inay aqbalaan in gudoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdulaahi Xasan. inta badan ganacsatadii arrintan aanu kala hadalnay inkastoo ay xogo isku mid ah siiyeen oo aysan isku khilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday haddana cabsi xad dhaaf oo dhinaca ammaankooda ay qabeen. mid ka mid ah ganacsatada oo sababo xagga ammaanka aynu magaciisa u qarinay isla markaana codkiisa aanu u doorinay ayaa inooga waramaya sida al-shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir. Hore ganacsatada kamid ah dacwatay dhulkaas bil shabaab ku dacwatay u bandhigtay intii caqabada meeshan ka jirto waxa ay weliba ku andacoonayeen dhinaca dawladda kale ka codsatay in waxa waaye warkooda kaliya meeshan laga tixgelinayo ayagoo ganacsada waaweynada warkooda la maqleenin shabaab dacwadii markii ay qadeysteen kadib qaabkii arkeen ayaga waxay go'aansadeen in labadan gobol ay u leeriyaan in ayaga ay rabaan bishan ay ka saaraan 17kii bishii December ee sanadkii dhamaaday 2019 ayaa waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdikariin Gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa weydiiyay waxa ka jira in al-shabaab ay u soo gudbiyeen gudoomiyaha uu dhawaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir. Gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan dhismay oo ka kooban 6 qofood oo ah gudoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo xafiid guud iyo shirin kamid ah ganacsiga guud ah mana aan waxa anagana la yeelay waxa muddo dheer 3 sano ayay banaanaa xilka gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir hadii si uu qeybta Allah una xariisto si uga dhintay ka dambeeyay shirinka xubnaha gobolka Banaadir ee jambarada gobolada matala ay ka banaanay xaaladaas muddo dheeraan marka xooga la iska jiray hadda waxaan moodaa marka inaan soo qaadno dhamaanteen gudoomiyaha rugta ganacsiga in aan abuurno kalaadii rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo ka kooban gudoomiyaha mana jirto aan cid lagu barashar galaysay iyo cid lagu xafatay si ku meel gaar ah 2 sano u magacaabay kabacdina waxay gudbisay doorashadan diyaarinayna insha Allah hadii la iraado. al-shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyay canshuur ka qaadayeen badeecadaha ka soo dega magaalada Muqdisho waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan inay al-shabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka. waxaa jira isbeddello maamul iyo magacaabisyo dhowr ah oo la sheegay inay sameeyeen al-shabaab balse aanay VOA-du xaqiijin. waxaanu la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaasoo noo sheegay xogo dhowr oo ku aadan saameynta ay hadda al-shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda sidoo kalena waxaa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan gaar ahaan canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda al-shabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fidaysa dhinacyada maamulka iyo gudiyada ganacsiga. gudoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre ayaa mar kale weydiiyay bal haddii ay ganacsatadu ku heshiiyeen is-horfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin. bil aadan boqolkiiba lama qancin karo laakiin inta badan waa ay soo dhaweeyeen sababtoo ah markasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan arrimaha ganacsiga gobolada maamul goboleedyada waxaa markasta maqan kursiga rugta ganacsiga gobolka Banaadir marka waxaan isku daynay in si konsensaa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay muddo weyn 6 doolar loo fadhiyay aakhirkii waxaa ka dhashay marka anagoo markaas aan la kaashanayno aan la xallo aqdiga ganacsiga gobolka Banaadir helitaankeenan inay nagu raacaan kadib xaflad weyn loo sameeyay oo lagu soo dhaweeyay oo aan arki kartaa xafladaas sida ay tahay ganacsiga Soomaaliya ugu waaweyn ee Muqdisho ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladaas.
qaar ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwa qaab monopoly ama u xiran dad gaar ah oo aanu qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso al-shabaab. mid ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir ayaa VOA-da u sheegay in gudoomiyaha cusub uusan ahayn nin horey ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn inkastoo kuwa kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga. waa kan mid ka mid a ganacsatada gobolka Banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababa xagga amniga ah codkiisana aanu bedelnay. absolutely kama tirsaneen gaadiidley iyo calaaq la soo qaadayay waxaa lagu macqarinayay gaadiidka maaha nin suuqley ama nin ganacsi ama nin aanan cilmi u ganacsi oo lagu yaqaano ma uusan ahayn. hadda markii la magacaabayo waxa uu ka yimi Hardheer 4 bilood kahor Hardheer uu joogay. haddeertaan dadkii u dhawaay oo saaxiibada la ahay meesha kala hadlaayeen markii ilaahay xilal ii magacaabaya oo la shaqeeya waxa ay ahayd Hardheer uu joogay. gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa dhowr su'aalood ka weydiiyay hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in al-shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo. waraysigan oo koobnaa waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa maadaama muddo la isku mari lahaa in booskaasi la buuxiyo. aad baa u mahadsan tahay. aniga magacaabisteyda waxay ku timid gudoomiyaha ganacsiga qaranka Soomaaliya ayaa magacaabay. magacaabistaas tala dheer ay ku timid oo ganacsatada gobolka Banaadir iyo ganacsatada kale Soomaaliyeed loo sameeyey. tashiga sidaas ayaan ku imid kaligeena lama magacaabin. waxaan la magacaabanahay gudoomiye ku-xigeen labaad mid saddexaad shaqadeed maaliyad lixdaas ayaan tiimka nahay. sidaasaan ogahay sidaasaan ku magacaabanahay. wax intaa ka dheeriya ma ogi. dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey gudoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo. ma jirtaa taas? maya waxaan ka ogahay ma jiro arrinkaas. maya. goormaad kusoo biirtay ganacsiga? waxaan kusoo biiray xilli aada u fog 96 kusoo biiray ganacsiga reer Bakaaradaan ahay. intaa Bakaaraan dhex joogay. adoyaal badan aan ahay suuqleyaan ahay isaan ahay. waa sidaas arrinkeyda. waxaa la sheegay in xilliga loo yeerayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogto Hardheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada Muqdisho. ma jirtaa taas? maya. marka maxaa isleedahay hadda ganacsiga oo saas u kala qaybsan tuhunkaas soo jira sidee hawshaada u qabsan? aniga shaqadeyda waana qabsanaa insha Allah. haddana shaqooyin badan jira oo practical aan ku sii karaan kaftay. cidda wax kale oo iyada la imaan doonta karugahan qaran ahaan iyo ka dawlad ahaan wixii role aan ku leenahay inaan la shaqeynaan diyaarinahay waan la shaqeynaynaa. annaguna hadda loo kala nahay oo gobolanahay heer gobolan ku shaqeynaa insha Allah. heer qaranna waa naga sii koreeyaan anaga shaqadana waa sidaas. marka muxuu yahay ganacsiga aad ku jiri jirto muddadaas oo aad haddana uga mid tahay ama gudoomiyaha aad ugu noqotay ganacsiga gobolka Banaadir? aniga shaqo badan aan ku leeyahay waxaa ka isticmaalahay haddii shay oo xafiis ku leedahay in xafiiskiina aad nagu soo bartaan waan isticmaalay intuusmaan aad u afalahay insha Allah. wasaaradda ganacsiga oo iyadu qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga ayaan arrintani wax ka weydiinay waxaana ay wasaaraddu inoogu sheegtay qoraal kooban oo ay noo soo dirtay in aysan la socon wasaaraddu arrintaasi. xog intaasi dhaafsiisan wasaaraddu nama siin mana naga ogolaan in aanu ka wareysano arrintaasi wasiirka. marka laga soo tago duqeymaha dhanka cirka ee ka dhanka al-shabaab ma jiro dagaal toos oo ay ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM hadda kula jiraan oo dhinaca dhulka ah. waxaana dad badan oo arrimaha ammaanka faaqidahay ay sheegayaan in ay sababtaasi u tahay in al-shabaab ay dhex gasho hay'adaha dawladda iyo kuwa bulshada isla markaana ay saameyn ku yeeshaan sida uu qabo taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Cabdullaahi Maxamed Sanbaloshe. magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya aad ayaa loo hadlayay
in shabaabku markii horeeto ay ku xooganaayeen meelaha reeriga ama magaalooyinka baxsan focuskana markii hore ama ay dowladda ay saari jireen garsoorka iyo canshuuraha inay ka qaataan dadka baada ah si dadban oo aan toos ahayn. hadda waxay muuqataa marka authoritygoodii ama awoodoodii dadbaneed inay formal ka dhigaan ay rasmi ka dhigaan awal informal ay ahaan jirtay. sida maalmaha la sheegayo waxaaba la sheegayaa meelaha qaarkood in ay si toosa dadka ay ugu soo magacaawdeen ama talatooda lagu magacaabay. natiijadu waxay tahay in la leeyahay dowladdu arrinkaas way ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baahay waaye ama haddaysan ka warqabin indhaha ayay ka qabsanaysaa. marka berigii hore waa la socotaayo magaalada muqdisho qaraxyo waaweyn hoteelada iyo meelaha ganacsiga ugeysan jireen. hadda haddii wixii dadkii sababta loo qarxi jiray ka sokow in marmarsiyaha ama qiilka qaraxaas uu ahaa in ay goobo dowladda ay ka talisay ay ku yaalaan ama farasil dowladdahu ay ku jiraan, laakiin inta badan qaraxa iyo weerarada waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baada iyo canshuurta al-shabaab raba waxay ka qaadaan iyo shabaab oo raba dadkaas inay ku dirqiyaan, ku sanduleeyaan, ku qasbaan. aakhirkiina haddii dadkii wax difaaca la waayey, dowlad difaacada la waayey, wixiina ay kasoo korayaan marnaba ay si joogsan dadkii inay ku daalaan ay iska aqbaleen damaantii ama dalabaadkii al-shabaab. yani si dadku isu qasbi jiray, hadda waxaa muuqata in la aqbalay dadkiina ay ka quusteen in dowladdeeda fiidgarayn karto cid hadda u jihayn karta in hadda ay ku jihaynayso dadkiina shabaab ma jirto. dadkuna bacdima dagaaladu ay daba dheeraadeen oo dhibaato fara badan ay dhacday, waxyaabaha danta guuda waa iska dhaafeen marmarka qaarkood asaga keligiis inuu badbaado. gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa waxa uu isniintii dhaweyd la kulmay gudoomiyaha gobolka banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish. kulankaasi ayaa waxaa ku weheliyay qaar ka mid ah ku-xigeenadiisa iyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed. gudoomiyaha Cumar Filish ayaan weydiiyay bal waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida uu arkay eedaha sheegaya in al-shabaab ay soo gudbiyeen gudoomiyaha cusub si xilkaasi loogu magacaabo. waa la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka banaadir guddigooda cusub. anagu ma aqoonin ganacsatada gobolka banaadir oo way cusubahayeen, balse waxaa iskaaga baray guddiga ganacsatada Soomaaliyeed gudoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey barta ama rugta ganacsiga gobolka banaadir, islamarkaas inay iskaanabari doonaan ay ii sheegeen. waxay ahayd marka isbarkii ayay ahayd isniinta kulankaasu. marka shaksiyad aan qaarkood garanayo qaarna aanan garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka banaadir xubnaha lagu magacaabay. marka kuwan garanayay Ibrahim Shaabo waa kamid ahaa oo hotel Shaabo iska leh. gudoomiyaha aqoonin ninka lagu magacaabay. marka intaasaan ka sheegi karaa. gudoomiyaha Cumar Filish ayaa sheegay in hay'adaha ammaanka ay u taalo inay baaraan arrinka, balse isagu uusan rumayn karin isla markaana beenayn karin in gudoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka banaadir uu xiriir la leeyahay al-shabaab. aniga nasiidartaasu waxaan anagu ogeyn ama isaguho aan ka helin ma jirin. marka dhihi karno waa shabaab mana dhihi karno shabaab. marka hay-adaha shaqada howlahaas ayay u talaa. mid ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa VOA-da u sheegay in ay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee al-shabaab ee dhinaca maamulka ganacsiga iyo weliba canshuuraha. ganacsadahan oo magaciisa aanu qarinay codkiisana aanu bedelnay ayaa yiri ganacsato ahaan maanta weelku waa ziyaado. maanta qofkii gobolka banaadir ku nool iyo shabeellooyinka dareemi karo. maanta ganacsiga iyo farnimo iyo maanta wax badli ah soo bandhigi kartaa ma ay jirto. maanta kambani adiga aan leeyahay xayeysiiso waa ku samayso in ummadda ku aqoonsato oo wax kula macaamilaan oo wax soo gataan xataa ma ay jirto. maalin alaalahaan dareemin kambanigaada hore u dhaqaaqaayo hore isaga ku daadsan
qofkaada muhiimadaada keenayso inuu kambani weyn meeshan kasoo socdo isla markii waxaa ku qasbantaa adiga in lagaaga yeero duurka welibana hadalkooda aad jiidka inta badan aatag maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yidhaahaan qolo walbana dhaqangal waa uga keeno iyo sababkiisa sare ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso al-shabaab inay ballaariso saameynteeda waxaana taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka uu qabaa in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee al-shabaab sideedaba waxay tahay al-shabaabka waa cadow horta in laga adkaado unbaa wax looga qaban karaa in lala dagaalo unbaa wax looga qaban karaa in kulligeen hadda annaga unbaa isku muuqana ayagu noo muuqdaan inay ayaga cadowkoo yihiin inay cadowga koowaad yihiin dadka oo dhan go-aan dawladeed ay tahay go-aan umadeed ay tahay go-aan shaksi ay tahay oo si dhaba loogu soo jeesto aragtidkooda iyo la dagaalankooda oo dagaalkooda waa luusluuso waa dilacsan horta la xoojiyo waa la muraa doctrinka ama mindsetka dawladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay soo jihaan shabaabna waa in la bedelo oo dadkan waa kansar waa cudub dad marnaba la aqbali karo nala noolaan karo ma aha annaga haddaan rabnaa isku soo jeesina horta ayagoo inaan ku jeesano iyo rigelintooda ama iyoduuladoodana hoos u dhici mayso anla kabadilisigooda ama awoodooda milatari la wiiqo marka hadda xilli oo laga shaqayn karo dawladda la joogto xilli focuska la saari karo in military ahaan la wiiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yani awoodooda milatari hoos loo dhigo kadibna midooda dhaqaale iyo tooda maxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo ayaga asfalaada ka dhexaysa ayaa yaraantay dad badan oo arrimaha al-shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii al-shabaab ay sii ballaaranayso haddana in al-shabaab lafteeda ay ka soo gudubtay xayndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca islaamka waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay islaamka ku gambanayeen al-shabaab uu hadda u soo xoog siibtay mid dhaqaale doon ah waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay